Assalaamu calaykum. Bilowgii sagaashameeyadii qarnigii hore, magaalada Dallas, gobolka Texas, waxaa ka dhacay kiisas badan oo dilal ah. Waxaa lagu dilay dad badan, laakiin mid ka mid ah dilayadii dilalka geystay ayaa aad uga soo dhex muuqday dilayada oo dhan, wuxuuna baalmadow ka galay taariikhda magaalada Dallas. Waxaa ka soo dhex saaray dilaagaas dilayada kale ee ka dhiga mid ka duwan kuwa kale waxay ahayd wixii uu ku samayn jiray meydka markii uu dila kadib. Wuxuu kala bixi jiray dadka uu dila indhaha, gaar ahaan bu'da isha, waxayna ugu magac dareen warbaahintu xilligaas dilaagii bu'da isha, The Eyeball Killer. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan ku ogaan doonaa qofka uu ahaa dilaagaas iyo sababtii uu dadka indhaha kala bixi jiray iyo sidii ay ugu suurto gashay booliska inay ku soo qabtaan. 13 Diseembar 1990 magaalada Dallas, gobolka Texas, oday ayaa subaxaas wuxuu ka soo baxay gurigiisa. Wuxuu arkay markii uu guriga ka soo baxay jidka dhinaciisa meydka qof yaallo. Markii uu ka soo ag dhawaaday, wuxuu arkay inuu yahay meydka haweeney aan wax dhara wadan oo qaawan. Wuxuu ku laabtay gurigiisa, wuxuu soo qaaday maro, kadibna wuxuu ku daday meydka, wuxuuna la xiriiray booliska. Booliska markay imaadeen oo goobta ay baareen, waxay arkeen marka koowaad in goobta meydka gabadha uu yaalay wax dhiiga uusan ku oolin. Waxayna ka fahmeen arrinkaas in gabadha aan lagu dilin meesha laga helay oo meel kale lagu soo dilay, kadibna meydkeeda meesha lagu soo tuuray. Sababta ay u geeriyootay gabadha waxay ahayd xabad madax lagaga dhuftay, laakiin caddayn uu dilaagii ka tegay oo goobta ay ka heleen ma jirin. Waxay wareysteen odagii meydka helay, waxay weydiiyeen marka koowaad inuu yaqaano haweeneydan meydkeeda uu helay. Wuxuu u sheegay inuusan aqoon, weligiisna uusan horay u arag. Sidoo kale booliska waxay wareysteen guryaha dadka ka agdhow meesha meydka laga helay. Waxay weydiiyeen in habeenkii ka horreeyay maalinkaas, habeenkii meydka meesha la soo dhigay, inay wax arkeen ama in ay dhawaqa xabad maqleen. Dadka waxay u sheegeen xaafadda inaysan waxba arag, sidoo kale dhawaqa xabadna aysan maqal. taasna waxay sii xoojinayday aragtidii booliska iyo dambibaarayaashu ay aaminsanaayeen ee ahayd in meydka gabadha meesha la soo dhigay oo meesha aan lagu dilin, sababtoo ah haddii lagu dilay meesha ay ka heleen ugu yaraan dadka guryaha ka agdhow degan ayaa waxay maqli lahaayeen dhawaqa xabaddii lagu dilay. Intaa kadib waxay fara ka qaadeen gabadha maadaama meydkeeda aysan aqoonsan, si baaritaan faraha ay ugu sameeyaan laga yaabo inay sidaas ku aqoonsadaan. Meydkeedana waa la qaaday, waxaa la geeyey dhakhtarka si baaritaan dheeriya loogu sameeyo. Farihii ay gabadha ka soo qaadeen markii ay geliyeen database-ka oo ay baareen, waxay ogaadeen inay tahay gabar lagu magacaabo Mary Lou Barrett. Mary Lou waxay ahayd 33 jir, waxayna ku nooleed xaafad lagu magacaabo Oak Cliff oo ka tirsan magaalada Dallas. Waxayna ahayd xilligaas xaafadda Oak Cliff xaafad aysan sumcadeedu wanaagsaneyn, sababtoo waxay ahayd xaafad ku caana ka ganacsiga daroogada iyo kooxaha gaangiska. laakiin waxa la yaabka ku noqday dambibaarayaasha ayaa waxay ahayd meesha ay meydkeeda ka heleen, sababtoo ah meesha ay meydkeeda ka heleen waxay ahayd meel ka fog 45 kilomitir xaafaddii ay deganeed xaafadda Oak Cliff. Meesha ay ka heleen ama xaafadda ay ka heleenna waxay ahayd xaafad ay degan yihiin dadka maalqabeennada ee magaalada Dallas. Dadka maalqabeennada saa'id kama ahan dadka xoogaa yar ka dhaqaale roon, dadka dabaqada dhexe, dadkaas ayaa deganaa xaafadda. Intaa kadib dambibaarayaashii waxay direen waxay u direen xaafadda Oak Cliff si ay dadka u soo wareystaan, laga yaabay inay soo helaan macluumaad wax u tari kara baaritaanka. Booliskii la diray inay roondo sameeyaan oo macluumaad ay soo ururiyaan waxaa ka mid ahaa nin lagu magacaabo John Matthew iyo haweeney lagu magacaabo Regina Smith. labadaas askari ee ka tirsan booliska waxay sameey jireen roondo, waxayna ku sameey jireen xaafadda Oak Cliff iyaga oo raadinaya macluumaad. dadkii ay macluumaadka ka heleen oo ay la kulmeen waxaa ka mid ahaa haweeney lagu magacaabo Veronica. Horey ayay u yaqaaneen, waxay ku yaqaaneen inay tahay haweeney been badan, laakiin markan waxay u sheegtay Veronica in ay aragtay markii la dilaya Mary. labada askari waxay siraahdeen laga yaabe inay tahay been ka mida beenaheedii hore, laakiin markii ay arkeen muuqaalkeeda waxay arkeen in dhaawac uu madaxa kaga yaallo, sidoo kale in ay sheeganaydo inay aragtay markii la dilaya Mary. waxay siraahdeen waxaa laga yaabaa in markan aysan been sheegayn maadaama sheegashadeedu ay ka weyn tahay beenaheedii hore. waxay u sheegtay in habeenkii ay aragtay nin xabad madaxa uga dhuftay Mary. markii uu arkay iyada oo meel ka fog taaganna waxay tiri wuxuu u soo orday dhankayga, kadibna waan ka cararay waxaana galay guri ka mida
guryaha xaafadda wuxuuna noqday guriga qof aan aqaano. sidaas ayaan ku badbaaday. waxay weydiiyeen labadii askari inay taqaano dilaaga iyo in kale. waxay u sheegtay inaysan aqoon, wejigiisana aysan si fiican u arag, laakiin waxay u sheegtay inuu yahay nin caddaana oo da'weyn, oo uu yahay qof ku jira da'da kontomeeyada oo kale. intaa kadib dambi baarayaasha, maadaama aysan hayn macluumaad ku filan oo ay ku aqoonsan karaan dilaaga, waxay ka warsugeen natiijada ka soo baxda baaritaanka meydka ay dhakhaatiirtu ku samaynayaan. laga yaabo inay ka helaan macluumaad waxtar leh. sida caadiga ah, dhakhaatiirta meydka baara marka ay meydka baaraan oo ay diyaarinayaan natiijada, waxay qoraan macluumaadka qofka, sida inuu yahay madow ama caddaan, kalarka timihiisa, kalarka indhihiisa, iyo sababtii uu u dhintay. haweenaydii dhakhtaradda ahayd ee baaritaanka samayday markii ay diyaarinayda natiijada waxay qorta macluumaadkaas, laakiin markii ay isku dayday inay qorto kalarka indhaha, waxay furtay isha, waxayna aragtay in isheedii aysan ku dhex jirin godka isha, oo godka isha uu faaruq yahay. waxay fiiriday isha kale, waxay aragtay iyadana inaysan ku jirin il, oo labada indhoodba ay faaruq yihiin. markii dhakhtaradda ay u fiirsatana waxay aragtay in indhaha aan si caadiya looga bixin, oo si xirfadaysan oo professionala looga saaray indhaha, qalliinna lagu saaray. waxayna ku qortay natiijada in qofkii ka bixiyey indhaha uu yahay qof yaqaana sida loo sameeyo qalliinada. dambi baarayaashuna markii hore oo ay meydka heleen ma aysan arag in indhaha ay ka maqan yihiin, sababtoo ah indhaheeda dhaawac kuma uusa oolin, mana jirin wax muujinaya in indhaha ay ka maqan yihiin. sidoo kale indhaha waa ay daboolaayeen, sidaa darteed ma aysan dareemin in indhuhu ay ka maqan yihiin meydka. 10kii February sanadkii 1991 waxaa ka soo wareegtay markii boolisku ay heleen meydka Mary Lou bil iyo 28 maalin. ilaa iyo xilligaasna lama xallin kiiska. maalinkii 10kii February waxay heleen meydka haweeney kale oo iyadana la dilay, meydkeedana lagu tuuray jidka dhinaciisa. markii ay booliska yimideen goobtii meydka laga helay, waxay arkeen inay tahay haweeney lagu dilay 3 xabadood. xabad waxay kaga dhacday madaxa, midna caloosha, midna xabadka. waxay arkeen sidoo kale in meydka haweeneydan goobta lagu soo tuuray oo goobta aysan ahayn goobtii uu dilka ka dhacay, maadaama dhiiggeeda aysan meesha ka helin. sidoo kale waxay heleen aqoonsigeeda, waxaa la dul saaray meydkeeda, waxayna ahayd haweeney lagu magacaabo Susan Peterson oo 27 sano jir ahayd. Susan waxay ku dhalatay kuna soo kortay gobolka Pennsylvania. markii ay noqotay dhalinyaro ay waxay ku biirtay ciidamada badda ee Mareykanka, laakiin muddo kadib waa isaga tagtay. waxay u soo wareegtay magaalada Dallas. booliska markii ay goobta baareen kama aysan helin caddaymo uu ka tegay dilaaga ama caddaymo ka jawaabi kara su'aalahooda goobtii lagu dilay iyo sababtii loo dilay. meydkeeda iyadana waa la qaaday, waxaa la geeyay dhakhtarka si baaritaan loogu sameeyo. waxaa jiray dhowr waxyaabood oo ay isaga eg yihiin kiiska Mary iyo kiiska Susan, sida in meydka laga helay goob aan ahayn goobtii lagu dilay, laakiin booliska uma aysan arag in labada kiis ay yihiin laba kiis oo isku xiran. sidaa darteed waxaa loo xilsaaray kiiskan dambi baarayaal ka duwan dambi baarayaashii kiiska Mary. meydka Susanna waxaa laga helay meel u dhow meeshii laga helay meydka Mary. intii dambi baarayaashu ay baaritaanka wadeen, sidoo kale 2 askari oo ka tirsan booliska oo ah labadii askari ee ka mid ahaa askartii loo xilsaaray in ay roondo ku sameeyaan xaafadda Oak Cliff, John Matthew iyo Regina Smith, ayaa iyagana waxay bilaabeen baaritaankooda u goonida ah. maadaama iyagu xaafadda Oak Cliff ay kala yaqaaneen oo ay ka shaqay jireen, waa ay ka xog ogaalsanaayeen dambi baarayaasha. sidoo kale ilahooda xogaha ay ka helaan waa ay ka badnaayeen dambi baarayaasha. waxayna ogaadeen labadan askari markii ay baaritaanka bilaabeen in Mary iyo Susan ay ahaayeen isku shaqo. waxay ahaayeen labadooduba dumar jirkooda ka ganacsada, waxayna ahaayeen 2 gabdhood oo dabeecadahoodu ay kala duwan yihiin. Susan iyadu maadaama background askarinimo ay leedahay, waxay ahayd haweeney adag oo inta badan qofku uusan kaga heli karin si sahlan waxa uu rabo. laakiin haweeneyda kale Mary waxay ahayd haweeney miskiina,
maadaama labada kiis ay meelo isku dhow ka dhaceen. dhakhtarka la geeyay meydka Susan wuxuu ahaa dhakhtarkii la geeyay meydkii Mary. isla haweeneydii dhakhtaradda ahayd ayaa meydka waxay ku sameynayda baaritaanka. markii ay meydka baarayday haweeneyda sidii aan soo niri waxaa laga rabay inay qorto sida uu u eg yahay qofka. markii ay soo gaartay indhaha oo ay indhaha furtay si kalarka indhaha ay u qorto waxay aragtay in ishii aysan ku jirin godka isha oo godka isha uu bannaan yahay, labada indhoodna waa ay bannaanayeen. haweeneyda dhakhtaradda markii intaas ogaatay isla markiiba waxay la xiriirtay booliska, gaar ahaan qaybta baaritaanka kiisaska dilalka, waxayna u sheegtay in labadan kiis ay isku xiran yihiin oo isku dilaa uu geystay. sababtoo labadoodaba waxaa ka maqnaa indhaha. waxay ku tiri waxay u badan tahay in qofka indhaha ka saaray uu yahay isku hal qof. markii uu dhacay kiiska labaad waxay ku qasbanaadeen boolisku in macluumaadka ay la wadaagaan warbaahinta oo dadka ay gaarsiiyaan si dadku ay u digtoonaadaan, sidoo kalena wixii macluumaad ay heli karaan ay booliska ula soo wadaagaan. sheekada dilaaganna waxay qabsatay warbaahinta, waxayna u bixiyeen warbaahintu The Eyeball Killer, dilaagii bu'da isha. sidoo kale waxaa faafay oo magaalada Dallas aad ugu faafay cabsi ay dadku ka qabaan dilaaga, sababtoo ah dilaayada sida isxigxiga wax u dila inta badan waa dilaayada ugu cabsida badan, sababtoo ah ma jiro nuuc gooniya oo dadka ka mid ah oo ay dilaan. qof walba oo ka soo horbaxa ayaa noqon kara qofka xiga oo ay dilaan. taas ayaana keentay inta badan in cabsidu ay aad u faafto. markii ay faafto cabsidii sidoo kale waxaa faaftay kutirikuteen dhahayda dilaagu wuxuu ahaa dhakhtar waalan ama wuxuu ahaa nin meydka duuga. inkastoo dambi baarayaasha ay dadaaleen oo dadaal aad u badan ay bixiyeen, haddana kuma aysan guulaysan inay dilaagi soo qabtaan ama in ay xataa helaan qof ay kaga shakisan yihiin inuu dilalka geystay. sidaa darteed waxay bilaabeen dambi baarayaasha cusub inay isticmaalaan istiraatiijiyad cusub. istiraatiijiyadooduna waxay ahayd in qaar ka mid ah haweenka ka tirsan booliska ay jidadka geeyaan iyaga oo ka dhigaya inay yihiin dumar jirkooda ka ganacsada si dilaaga ay u soo qabtaan, isaga oo isku dayaya inuu wato haweeney. 1 Maarch 1991 habeenkaas mid ka mid ah dumarkii booliska ee iska dhigay inay yihiin dumarka jirkooda ka ganacsada ayaa waxaa ka daba yimid iyadoo socoto jidka nin. wuxuu ku yiri magacaa, waxay ku tiri Jenny. wuxuu ku yiri kadib indhahaagu way qurux badan yihiin. isla markiiba boolisadii waa ay ka shakiday, waxayna la soo baxday bistoolad. kadibna waxay wacday booliska markay imaadeen oo ay qabteen wuxuu noqday nin lagu magacaabo James Bryan. markii ay weydiiyeen shaqada uu qabto wuxuu u sheegay inuu yahay dhakhtar qaliinada sameeya. taas ayaana keentay inay kasii shakiyaan oo ay soo xiraan keenaanna xarunta booliska. markii ay isku dayeen inay wareystaan waa uu diiday inuu la hadlo, maadaama aysan caddayn ku hayna waxay ku qasbanaadeen inay iska sii daayaan. sidoo kale waxay bilaabeen boolisku in ay indhaha ku hayaan hoteelada inta badan dumarka jirkooda ka ganacsada ay kireystaan si ay u arkaan ragga ku laalaabta meelaha ay joogaan dumarka jirkooda ka ganacsada. waxayna bilaabeen inay baaraan xogta raggaas. waxay raadinayeen mid ka mida oo ku laalaabta dumarkaas, sidoo kalena ah dhakhtar ama shahaado ka haysta sida qaliinada loo sameeyo, laakiin wax natiijaha ugama soo bixin, mana aysan helin qof shaki geliya. intaa kadib dambi baarayaasha kiiska waxay la wadaageen FBI, waxayna weydiiyeen in ay horay u arkeen FBI-du dilaa noocan oo kale ah, dilaa markii uu dila dadka meydkooda indhaha kala baxa. markii FBI-du ay baareen kaydkooda daatada waa ay ka waayeen, waxayna ogaadeen dambi baarayaashu inuu yahay dilaagii ugu horreeyey Maraykanka oo dhan ee waxyaabahan oo kala sameeya. wuxuu ahaa nooc cusub oo ka mida dilaayada. labadii askari ee iyaguna baaritaanka waday, John Matthew iyo Regina Smith, iyaguna baaritaankooda dhinacooda ayay ka wadeen. waxayna la kulmeen haweeney lagu magacaabo Brenda oo ahayd haweeney jirkeeda ka ganacsata oo caan ka ah xaafadda Oka Cliff. markii ay la kulmeen Brenda waxay u sheegtay in habeenkii ka horreeyay habeenkii ay la kulmeen in nin ay raacday. markii ay baabuurkiisa kortay waxay tiri Brenda ninkii waa uu xanaaqay, wuxuuna bilaabay inuu qayliyo oo uu caayo. wuxuu ku yiri waa necbahay dumarka jirkooda ka ganacsada, waana idin dili doonaa dhammaantiin. waxay weydiiyeen askartii sidee uga soo badbaada marka. waxay ku tiri waxaan watay gasac uu ku jiro
gaaska dadka ka ilmaysiiya, sunta dadka ilinta ka keenta, wuxuuna ahaa gasac la buufi karo sida carfisada oo kale. waxay ku tiri sunti ayaan indhaha kaga shubay kadibna waan ka cararay. waxay ku yiraahdeen ninka ma taqaanaa? waxay ku tiri ninka ma aqaano, laakiin tilmaamihiisa wuxuu ahaa nin weyn oo da'weyn, sidoo kalena wuxuu ahaa nin madaxiisa ay cirro ku taallo, wuxuu ahaa nin xooggan muuqaal ahaan, wuxuuna ahaa caddaan. waxay ku yiraahdeen da'diisa haddii aad qiyaasto meeqa ayuu jiraa ayaa isleedahay? waxay ku tiri waxaan ku qiyaasaa inuu jiro da'da kontameeyada. maalinkii xigay markii la gaaray, labadii askari waxay tageen qaybta baarista dembiyada waxayna la kulmeen dembi baarayaasha. markii ay la kulmeen dembi baarayaasha waxay u sheegeen sheekadii ay u sheegtay Brenda, waxayna u sheegeen inuu yahay nin da'weyn, laakiin dembi baarayaasha kama aysan dhegaysan. sababtoo ah dembi baarayaasha waxay aaminsanaayeen inuu yahay nin da'yar, nin ku jira da'da sodomeeyada oo kale oo xooggan, maadaama uu ka adkaaday Susan Peterson oo leh background ciidannimo. waxay yiraahdeen ma noqon karo nin da'weyn oo da'diisu ay ka weyn tahay 50 sano. sababaha aysan u dhagaysan hadalkoodana waxaa ka mid ahaa sababtoo ah xilligaas aad ayay u yareed ilaa iyo maantana aad ayay u yar tahay in kiisaska dilalka ay xalliyaan booliska caadiga ah. waxaa xalliya inta badan dembi baarayaasha ama FBI-da. dhowr maalin kadib, Regina iyo John waxay la kulmeen haweeneydii hadda ka hor ay la kulmeen ee u sheegtay inay aragtay Mary Lou oo la dilayo, Veronica Rodriguez. markaana Veronica waxay la socotay nin taraagla ah, nin taraag wada, waxayna taagnaayeen mid ka mid ah hoteelada ay kiristaan dumarka jirkooda ka ganacsada. ka ganacsiga jirkana Mareykanka wuxuu ka ahaa mamnuuc xilligaas. ma aqaano ilaa iyo maanta inuu sidaas yahay iyo in kale, laakiin xilligaas lama ogolayn ka ganacsiga jirka. dumarka sameeyana inta badan waxay ku samayn jireen si aan qaanuuni ahayn, waana ay iska ilaali jireen booliska. markii labadii askari ay arkeen Veronica iyo ninkii, waa ay istaajiyeen. Veronica waxay ku tiri ninka ha xirina, waa ninkii badbaadiyey, waa ninkii gurigiisa aan galay habeenkii markii uu soo eryeeday ninkii dilay Mary Lou. inkastoo Brenda ay ka codsatay ninka inaysan xirin, laakiin haddana waxay ku khasbanaayeen inay qaanuunka raacaan. sidaa darteed ninkii waxay ka qaadeen laysankiisa si ay u baaraan. wuxuu ahaa ninka nin lagu magacaabo Axton Schindler. markii ay baareen waxay ogaadeen adareyska guriga uu degan yahay. markii ay aragtay askariyadii adareyskiisa, ninka waa ay ka shakiday sababtoo ah guriga ninka uu degan yahay wuxuu u dhowaa meelihii laga helay meydadka gabdhaha. sidoo kale waxay ogaadeen ninka in horay waaran loogu jaray in la soo xiro dambiye uu galay dartood. sidaa darteed waa ay xireen labadoodaba. dilaagan dumarka uu dilay maadaama ay caddaan ahaayeen, dumarka madowga ah iyo kuwa Laatiinada ama Hisbaaniga waxay dareemayeen ammaan. sidaa darteed iyagu waa ay iska soo bixi jireen oo waa iska wareegi jireen iyagoo aan cabsi dareemin. laakiin wax walba waxay isbedeleen 19 bishii Maaj 91. subaxii 19 bishii Maaj, haweeney 2 cunug ay dhasho u wada iskool ayaa gabadheedu waxay aragtay meyd jidka yaala. isla markii haweeneydii waxay la xiriirtay booliska. markay imaadeen waxay u yimideen meydka haweeney qaawan oo jidka la dhex dhigay, waxaana la dhigay iskuul ay caruur dhigtaan hortiis. markii booliska ay imaadeen, haweeneyda waxay arkeen in loo dilay si ka duwan sidii loo dilay dumarkii hore. markan haweeneyda waxaa ka muuqday dhaawacyo tiro badan. madaxa waxaa kaga yaalay 2 xabadood, sidoo kale wejigeeda waxaa ku yaalay dhaawacyo muujinaya in loo gacan qaaday ka hor intii aan la dilin, oo dilaagii dilay ka hor intii uusan dilin waa uu garaacay markii hore kadib ayuu dilay. dembi baarayaasha waxay u qaateen haweeneydanna inuu dilay dilaagii dilay labadii haweeney ee hore, Mary iyo Susan. si ay u hubiyaanna mid ka mid ah dembi baarayaasha ayaa wuxuu furay haweeneyda isheeda, wuxuuna arkay in godka isha aysan il ku jirin. sidaa ayna ku xaqiiqsadeen in haweeneydanna uu dilay dilaagii bu'da isha, waxayna ahayd haweeneydii saddexaad ee uu dilo. haweeneyda markan uu dilay waxaa lagu magacaabaa Shirley Williams. haweeneydanna waa ay ka duwaneed labadii haween ee horay uu u dilay. waxay ahayd markaan haweeney madow. markii hore waxay ahaayeen dumar cad, laakiin markaan waxay ahayd haweeney madow. sidoo kale waxay ahayd haweeney da'weyn. da'deeda ma naqaano, laakiin waxay ahayd haweeney da'weyn, ma aysan ahayn haweeney dhalinyaro ah.
kuwii horena waxay kaga duwaneed sababta oo kuwii hore waxay ahaayeen dhalinyaro inta badan waxay ahaayeen bilowga sodomeeyada. meydkeedii waa la qaaday, waxaa la geeyey dhakhtarka, waxaa lagu sameeyey baaritaan. isha dhinaceeda ayay waxay ka heleen midi ku jabtay afkeeda. midi nuuceedu yahay exacto, waana midi yar oo wax lagu jaro, kulli waxa lagu sameeyaa qaliinada oo afkeeda la bedeli karo. sidoo kale wararka dilkan wuxuu gaaray warbaahinta, waxaa timid goobta warbaahinta, waa ay duubeen, wuxuuna qabsaday wararka warbaahinta. dadkii magaalada Dallas markay ogaadeen haweeneyda la dilay inay ahayd haweeney madow, waxaa sii faaftay mawjadii cabsida. sababta ah waxay ogaadeen dhammaantood in markaan aysan jirin nooc gooniya oo dilaagu uu dilo, oo qof walba uu noqon karo qofka xiga uu dilo noocuu doona ha ahaadee. habeenkii xigay maalinkii meydka la helay, haweeney ayaa waxay u timid booliska, gaar ahaan labadii askari ee baaritaanka goonida ah waday, John iyo Regina. haweeneyda waxaa lagu magacaabaa Tina Conley. waxay u sheegtay Tina labadii askari in habeenkii la dilay Sherry intii aan la dilin ka hor ay iyadu ahayd qofkii ugu dambeeyay ee la kulma. waxayna u sheegtay inay siiday jaakadeeda oo ahayd jaakad jaallo ah, sababta ah waxaa da'aya habeenkaas roob. Tinana ma aysan shaqaynayn, sidaa darteed Shirley oo sii baxayda ayay jaakada siiday, waxayna raacda ayay tiri Shirley nin baabuur wata. intaa markay ogaadeen booliska waxay u qaateen in ninka dilaaga hadafkiisa markii hore ay ahayd Tina, sababta ah waxay ahayd haweeney cad, wuxuuna ku aqoonsanayay jaakada jaallaha ah. markii uu istaagay wuxuu islahaa iyada ayaa ku soo raaci doonta. markii uu arkay qof jaakad jaallo ah wata oo u soo socda, wuxuu u qaatay inay tahay Tina, laakiin markii ay soo kortay oo uu arkay inaysan ahayn haweeneydii uu rabay, waa uu xanaaqay. haweeneydan soo raacday ee Shirley ayuuna ku ciilbaxay, sidaa darteed ayuuna u garaacay kahor intii uusan dilin, si ka duwan sidii labadii hore ee dumare ee uu dilay. labadii askari John iyo Regina waxay bilaabeen inay qaab cusub kiiska u baaraan, si ka duwan sidii ay u fakarayeen dambi baarayaasha. waxay baareen liiska dadka iskale, guryaha u dhow, meelihii laga helay meydadka. sidoo kale waxay baareen adereeska guriga ninkii ay qabteen isaga oo la socda Veronica ee lagu magacaabayay Axton Schindler, wuxuuna ku yaalay jid lagu magacaabo Eldorado. markii ay baareen waxay ogaadeen in guryaha inta ugu badan uu leeyahay hal nin oo magaciisa uu ku soo laalaabtay oo lagu magacaabo Frederick Albright. guriga uu degan yahay Axtonna isla isaga ayaa iska lahaa Frederick Albright. intaa kadib waxay tageen xafiiska deegaanka, waxayna ka baareen magaca Frederick Albright. waxay ogaadeen inuu mar dhow codeeyay. markii ay sii baareen magaciisa waxay heleen shahaado dhimasho oo magaciisa uu ku qoran yahay, waxayna ku noqotay layaab, sababtoo ah wuxuu lahaa guryo badan, wuxuuna codeeyay mar dhow, haddana waa uu dhintay. intaas ayay fahmi waayeen, waxayna go'aansadeen in mar kale ciwaanadii ay dib u baaraan oo ay ku celiyaan. waxaa ciwaanada kombiyuutarka gelinaya ninka. haweeneyda Reginana waa ay u yeerinayday, kor ayay u akhrinayday. mid ka mid a askartii ka shaqaynayda xafiiska ayaa wuxuu maqlay ciwaanka guriga. markii ciwaanka uu maqlay ayuu wuxuu ku yiri ciwaanka ku celi. ciwaankii markii ugu celiday wuxuu ku yiri nin ayaa wuxuu ii sheegay in ninka degan gurigaas uu jecel yahay midiyaha exacto. waxay ku yiraahdeen ma taqaanaa ninka degan guriga? wuxuu ku yiri Albright. waxay ku yiraahdeen Frederick Albright. wuxuu ku yiri maya, waxaa degan wiilkiisa Charles Albright. Frederick Albright waa uu dhintay. markii uu dhintay kadib ayaa waxaa dhaxlay guryaha wiilkiisa Charles Albright, isaga ayaana degan guriga. wuxuu ahaa magaca Charles magac ku cusub, sidaa darteed waa ay baareen, waxayna ogaadeen in kiisas uu horay u galay. waxay ogaadeen in mar lagu eedeeyey in shahaadooyin been abuura uu samaystay. waxaa lagu qabtay sidoo kale tuuganimo dhowr jeer isagoo wax dhacaya ayaa la qabtay. intaa markay ogaadeen waxay baareen sawirkiisa, waxayna heleen sawirkiisa. markii ay arkeen sawirkana waxay arkeen inuu u eg yahay ninkii ay tilmaantay Brenda White, haweeneydii jirkeeda ka ganacsi jirta ee u sheegtay in nin uu isku dayay mar inuu dilo. waxayna u sheegtay inuu yahay ninka nin da'weyn, madaxiisana ay ku jirta ciro. Charles Albrightna wuxuu ahaa noocaas, wuxuu ahaa nin da'weyn oo madaxa ciro ku leh. intaa markii ay ogaadeen kadib labadii askari waxay qaadeen macluumaadkii oo dhan, kadibna waxay u geeyeen macluumaadkaas taliyaha ka sarreeya. taliyaha markii ay tuseen macluumaadka oo dhammaystiran wuxuu ku yiri waa macluumaad wanaagsan, waana la wadaagi kartaan qaybta baaritaanka kiisaska dilalka.
intaa kadib waxay la kulmeen dambi baarayaashii u xil saaraa kiiska inay baaraan macluumaadkii ay soo ururiyeen. markii ay la wadaageen dambi baarayaashu waxay ku yiraahdeen waa macluumaad wanaagsan, waa dadaasheen, waana laga yaabaa in ninkan uu yahay dilaaga. waxayna go'aansadeen in ninkan ay baaraan, askartaana ay dhinacooda ka wadaan, dambi baarayaashuna ay dhinacooda ka baaraan. waxay sameeyeen dhowr sawir uu ku dhex jira sawirka Albright. waxay la kulmeen labadii askari, Brenda White. sidoo kale dambi baare ayaa isla xilligaas isagana wuxuu la kulmay Veronica Rodriguez oo iyadana xabsiga ku jirtay. waxayna tuseen labadoodaba Veronica iyo Brenda sawiradii ay isku dhex dareen ee uu ku jira sawirka Albright. labadii askari waxay ku yiraahdeen Brenda, ninkii isku dayay inuu ku dilo sawirkiisa ma ku jiraa sawiradan. dhanka kale dambi baarihii wuxuu ku yiri Veronica intuu sawirada hordhigay, sawirka ninkii aragtay isagoo dilaya Mary Gaddi. Veronica waxay rogtay sawirka Albright. dhanka kalena Brenda markii ay tuseen sawirada waxay dooratay sawirka Albright, waxayna tiri waa ninkii isku dayay inuu idilo. markii ay hubsadeen booliska in ninka uu yahay Albright, waxay tageen gurigiisa, kadibna waa la soo xiray. Charles Frederick Albright wuxuu dhashay bishii August sanadkii 1933 wuxuuna ku dhashay isla gobolka Texas. hooyadii iyo aabihiis waxay isaga tageen yaraantiisii lama yaqaano, waxaana soo koriyay qoys kale, nin lagu magacaabo Frederick Albright iyo xaaskiisa, iyaga ayuuna magacooda qaatay. hooyadii iyo aabihiis maadaama aysan carruur lahayn, markii uu dhintay aabihii kadib isaga ayaa dhaxlay guryihiisa oo dhan. waxayna ogaadeen Frederick in tan iyo yaraantiisii uu ahaa tuug faragooya. wuxuu soo bilaabay tuuganimo tan iyo markii uu ahaa 13 jir. dhowr jeer ayaa la qabtay oo lagu qabtay tuuganimo. maalmihii xigay markii la soo xiray, boolisku waxay baaritaan ku sameeyeen gurigiisa, waxayna ka soo ururiyeen wax walba oo u anfici kara caddayn ahaan. markii ay guriga tageen oo ay baareen, waxay ugu tageen midiyo tiro badan oo kala nooca. intii ay dambi baarayaashu baarayeen guriga, dhanka kale labadii askari ee kiiska baarayay, John iyo Regina, iyaguna waxay wadeen baaritaankooda u goonida ah. iyagu waxay tageen hoteelada inta badan ay kireystaan dumarka jirkooda ka ganacsada, waxayna bilaabeen in dhulalka u dhow meelaha bannaan ee u dhow ay baaraan. mid ka mid ah hoteeladaas meel u dhow iyaga oo baaraya ayay waxay heleen jaakadii jaallaha ahayd ee ay tiri Tina waxaan siiyay Shirley, jaakadii ay wadatay intii aan la dilin ka hor. jaakadana waxay ka heleen dhiig. markii jaakada la qaaday oo la geeyay shaybaarka oo baaritaan lagu sameeyay dheeriya, waxay ka heleen jaakada tin dabagaale. laakiin tin dabagaale maxay cadday kartay? gurigiisa markii ay baarayeen, waxyaabihii ay ka soo qaadeen waxaa ka mid ahaa mashiin dhulka lagu nadiifiyo. mashiinka markii ay baareen waxay ka heleen tin dabagaale. sidoo kale gurigiisa waxay ka soo heleen dabagaale la qalajiyey ama waxa taxniidka carabta ay yiraahdeen lagu sameeyay oo sidiisii ah. waxayna ogaadeen markii ay baareen in tintii ay ka heleen jaakada iyo tintii ay ka heleen mashiinka dhulka lagu nadiifiyo ay ahayd tinta dabagaalihii ay ka soo heleen gurigiisa isaga oo la qalajiyey. sidoo kale waxay ogaadeen in markii uu dhalinyarada ahaa hooyadiis ay ku dartay koorso lagu barto sida loo qalajiyo xayawaanada, wuxuuna bilaabay markaa kadib inuu qalajiyo xayawaanada sida mukulaalaha iyo dabagaalayaasha oo kale. laakiin wuxuu u baahnaa marka uu xayawaanada qalajiyo indha baliila, laakiin hooyadii waxay yiraahdeen dambi baarayaashu waxay ahayd bakhiil, sidaa darteed uma aysan gedi jirin indho. wuxuuna ku qasbanaaday in guluusyada shaatiyada uu u isticmaalo indha ahaan oo xayawaanada uu qalajiyo uu uga dhiga indho. halkaas ayuuna ka keenay kuwaalaashaha uu ku waalayahay indhaha. taas ayaana sababtay in meydka dumarka uu dilo uu indhaha kala baxo si xayawaanadiisa uu qalajiyey indhahaas uu ugu geliyo. ugu dambayn bishii December 1991 ayaa lagu eedeeyay Charles Albright inuu dilay 3 dumar, Mary Lou Barad, Susan Peterson iyo Shirley Williams. waxaa ku caddaatay in dumarkaas oo dhan uu dilay, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. bishii August 2020 ayuuna ku geeriyooday xabsiga. muuqaalkeennii maanta intaas ayuu ku eg yahay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah.